بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولي waxaan dhexdo kaga jiraa أيها الإخوة وأيها الأخوات موضوعي aan u bixinay ayadoo nabi maxamed lagu amaanayo sala allahu calayh wasalam, wa inaka lacalaa khuluqin cadiim. haddaad xusuusataan fadhigii ka horreeyey waxaanu ka soo hadalnay nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam akhlaaqdiisa ayaanu ka waranay calayhi salaatu wassalaam. mawduucani ama xalaqadani waxaan ka warami doonaa mawduuc aad iyo aad aan ugu baahan nahay. muslimiinta oo dhan baa u baahan, bal gaalada ayaa u baahan, bal xayawaanka ayaa u baahan. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ma fahamtay mawduucan ka hadlayno? waa naxariista rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. ina araxmata sifatu min sifaat illah. raxmadu ama naxariistu waa tilmaan kamida ilaahay tilmaamihiisa uu isku sifeeyey subxaanahu jala wacala. wa min cadiimi raxmatihi, naxariista ilaahay weynankeeda waxaa kamida annahu tacaala arsala muxamada raxmata lilbashariyati kuliha. inuu nebi moxamed soo diray basharkoo dhanna u soo diray liikhraaji annaasi min aldulumaati ila annuur, inuu dadka ka saaro mugdiyada, shirkiga, gaalnimada, jahliga, khuraafada, inuu ka saaro ila annuur, iftiinkana u saaro. laqad jaakum min allahi nuur wa kitaabu mubiin. waa nebiyu nuur ah, waa nebi nuur ah iyo kitaab nuur ah. nacam, afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiya. qof labadiisa indhoodna wax ku arka, labada lugoodna ku socda ma siman yihiin iyo qof madaxa ku socdaoo lugahana kor u taagay? waa maya. wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala aldulumaatu wala alnuuru wala aldilu wala alxaruuru wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat ina allaha yusmicu man yashaa wamaa anta bimusmaci man fi lqubuur. ma siman yihiin wamaa yastawi alacmaa waalbasiir. mid indhoolo ah iyo mid wax arka ma siman yihiin. wala aldulumaatu wala annuur, mugdi iyo iftiin ma siman yihiin. wala aldilu wala alxaruur, ee qorax iyo hoos, kulayl iyo qabow ma siman yihiin. wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat, ma siman yihiin. kulayl iyo qabow ma siman yihiin. ee qorax iyo hoos ma siman yihiin. geeri iyo noolal, intaaba. idan nebi moxamed waxaa lala soo diray noolal iyo iftiin sala allahu calayhi wasalam. qaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. nebi moxamedow ma aanan kuu soo dirin wax kaleba adduunyada kuumaanan keenin ilaa inaad u tahay ma ahane raxmad caalamiinta. muslimiinta bese ma aha, caalamiinta oo dhan ayuu nabigu u yahay sala allahu alayh wasalam. ummadeenna wuxuu yihi alla mataqaanaa tabaaraka wa tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim. ilaahay baa yihi tabaaraka wa tacaala nebi maxamedow ummadan ma halaagayo adigoo nool, adigoo ku dhex jira. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. inta ay dembi dhaaf ilaahay weydiisanayaanna ilaahay ma cadaabayo tabaaraka wa tacaala. nabigeena sala allahu alayh wasalam yaa ayuha annaasu inamaa, nabigaa yihi yaa ayuha annaas inamaa ana raxmat lmuhdaa. dadow saad u dhantihiin anigu raxmad baan ahay, midka dadka hanuuniya oo asaga sababkiisa lagu hanuuno ayaan ah. idan naxariista nabigu waa caama, waa jamiican linnaasi jamiica, dadka oo dhan ayay gaaraysaa. wa khaasatan kadalika liummati, nabiga ummadiisana way gaaraysaa sala alla alay salam. xadiidkan cajaa'ib ka badan tilmaamaya dacwada iyo naxariista nabiga dhegeyso. inamaa mathalii wa mathalu nnaasi kamahali rajulin istawqada naaran falamaa adaa'at maa xawlahu jacala alfaraashu wa hadihi اdawaabu alati taqacu fi الnaari yaqacna fiiha fajacala yanzicuhuna. nabigana sala اllah alay salam, aniga tusaalahaygu iyo dadka tusaalahoodu waxay la mid yihiin sidii nin dab shiday, wakti weliba uu roob da-ay, qof dab shiday, kadibna waxa daalalayda iyo waxa duula ay bilaabeen inay dabki ku daadanayaan. nabigu wuxuu leeyahay aniguna waxaan bilaabay inaan idinka qaqabanayo, halkaa guntiga ah ee suunka laga xidho ayaan idin hayaa buu leeyahay, idinkuna waad ku daadanaysaan.
lacalaka baakhicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin. hadday mu'miniin noqon waayeen oo ilaahay rumayn waayeen adu ma isdilay ma naftaadaad halaagaysa ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu alayh wasalam fa haadihi raxma, waa raxmad iyo naxariis cid oga horeysay nabiga aynan jirin sala allahu alayhi wasalam. ayuha alaxibatu fi llah, ayuha alikhwatu fi llah, nabiga naxariisiisu waxay gaadhay alkabiir wاlصagiir wاlrijaal wاlnisa wاlqariib wاlbaciid, mid yar iyo mid weyn, rag iyo dumar, mid dhow oo qaraabo u ah iyo mid fog intaba, bal الصidiiqu wاlcadow, bal mid saaxiib ah iyo cadow intaba way gaadhay. nabiga salى اllahu alayhi wasalam naxariistiisu kuma koobno bimakaanin aw zamaan, makaan kuma koobno meel, nabiga naxariistiisa kuma koobno zaman iyo waktina, nabiga naxariistiisa kuma koobno. wainamaa hiya likuli اlcaalamiin mundu bacaثahu allahu tabaaraka wa tacaala ilى ywm اddiin. nabiga salى اllahu alay waslm naxariistiisu caalamka oo dhan bay gaadhay laga bilaabo maalintu alla soo saaray ilaa nabigu ilaa ay adduunyadu ay ka dhammaanayso. arrinkaana waxaan ka arkaynaa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi الraxamaa. nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi ilaahi tabaaraka wa tacaala alla wuxuu u naxariistaa oo keli a addoommadiisa kuwa naxariista. shicaarka iyo calanka ayuu nabigu keenay sala allahu alayhi waaalih wasalam. nabiga naxariistiisu waxay ka muuqanaysay aqwaashiisa iyo hadaladiisa, nabiga naxariistiisu waxay ka muuqanaysay afcaashiisa, weliba asagoon isku kalifaynin ina qofaaba wax iska keenkeene, qofaaba naxariista iska doondoone, nin baaba ficilkiisa isku qasba inuu naxariis ka dhigay. lalala, nabiga naxariistiisu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn wax istinaaca ama tajamula ama isku qurxinayo ama uu samaynayo ma ahayne, inamaa kaanat raxma طabiiciya, nabiga sicaaya tilqaa'iya. nabiga sala allahu alayh wasalam waxaana laga arkayey noloshiisa oo dhan ayaa laga arkayay nabiga sala allahu alayh wasalam. waxaad la yaabi doontaan wax cajiiba, laga yaabaa horay inaadan u maqal. mataqaana nabiga naxariistiisa kelimatu raxma qur-aanka waxay ku soo aroortay 315 jeer, bedelka alxilmu dulqaadka 15 jeer, cadliga 24 jeer, alwafaau ballan oofintu 29 jeer, alamaanatu 40 jeer, alkaramu deeqsinimada 40 jeer, alkaramu 42 jeer, cafiga 43 jeer, sabarka 90 jeer, sidqiga 145 jeer, ama araxma 315 jeer. allah ya allah, naxariista nabiga sal ly slam 315 jeer ayay ku soo aroortay. ayuha alikhwa, inta aan soo sheegnayna waa ay ka yar yihiin. laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana. nabiga sal ly slam anaga naga mid ma aha, wadada yadina maba haystaba qofka aan u naxariisanin kaanaga yar midkaan u naxariisanin, qofka naga weyna aan qadarinin. waana midda maanta aan u baahana, ilmaha yar inaan u naxariisano, qofka naga weyn ee islaamka ku ciroobayna ama cilmi ku weyn ama da' ku weynna inaanu qadarino. maalinta ay muslimiintu arrintaa garan waayaan waa maalinta ay baaba'ayaan. laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana. yaana baraya arrintaa nabiyullaahi muxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam. taa waxaad garanaysaa sida uu nabigu ugu naxariisanayey bikibaari sini waalatfaal, caruurta yaryarka ah iyo dadka waaweyn. intaa kelia ma aha, ra'uufu raxiim bilmukhطi'iin aladiina jaaءuu liyactarifuu bidunuubihim. xataa kuwa dembaabay ee dembiyada galay ayuu nabigu u naxariisan jiray sala allahu alayhi waaalih wasalam. nin baa u yimid nabiga, yaa rasuula allah halagtu, waan halaagsamay buu nabi sal ly slam. ninkii baa dhahaya, markaasuu yidhi maa laka, maxaa kugu dhacay? waqactu cala imra'atii wa ana saa'imun. maalin ramadaan ayaan reerkayga ku dhacay. dembi weyn buu ku dhacay. markaasuna fahal tajidu raqabatan tuctiquha, ma heli kartaa addoon aad xorayso? qaala laa. fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn, 2 biloodoo isku xigta ma soomi kartaa? qaala laa.
ما يمسوي كرو فهل تجد إطعام 60 مسكينا لحدا المسكين مقودين كرتا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركا هلكي بيكون نجاني فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق دنبيل أي تبري كجرتا الله كامي أين السائل أو نيكي وحي ويديني وحي لأنيقا خذها فتصدق به يا رسول الله صير عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كان قاضوه صدقيسو مركاسو نيكي وحي أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر هيا من أهل بيتي وحي رسولك لا هيا عد مقالبني لبدا بورودة هريرها كأ رير دقن أو أنيقا رير كيغا كفقير سنمياجر ما أنت إذ إيقابها بمجر توام أباهنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه نبي واقص إلا نبي عيسى لقاركو ثم قال أطعمه أهلك صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فما أرحم هذا التعامل من رسول الله الله نبي محاكم حريص بدن صلى الله عليه وسلم بل نبي حريصيسو في مجال العبادة عبادة أي كتب يا أيها الناس إن منكم منفرين معاذ بن جبل با صلاة كل إيري مركاسا ويل با كدعوذي مركاسو النبي عروضي فمن أما الناس فليتجوز يعني إنك إمام نقضى صلاة خفيفية فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة waxaa ku daba tukanaya mid tabaryar iyo mid odaya iyo mid doonaya intuu tukado inuu tareenka raaco famathalan nabiga sala allahu alayh wasalam xataa qoysaska ayay nabigu iska daa wax kale xataa dadka lasoo qafaashay ee xabsiyada ku jira ee gaalada laga soo qafaashay ayay naxariistu nabiga gaadhay sala allahu alayhi wa alihi wasalam away gabadhii u timid nabiga sal ly salam gabadhaas iyada nabi waa soo maray ayadoo masaajidka hortiisa ku xidhan waa gabar mataqaana min qabiilati tayi bay ahayd qabiilada ayay ka dhashay reer bani tayi ayay ahayd markaasuu nabigu masaajidka albaabkiisa ayuu ku soo maray sala allahu alayh wasalam markaasay haweeney aftahanada oo si wanaagsan hadalka u taqaana waa yaa rasuul allah halaka alwaalid bay tiri wagaaba alwaafid bay tiri aabbahayna wuu dhintay walaalkay oo cadiy min atai yacni walaalkay oo cadiy asagana waxa weeyaan waa maqan yahay famnun calaya mana allahu calayk maanta iska kaydaa ilaahay ha ku sii daaya tabaaraka wa tacaala waa qof dumar ah markaasuu nabigu sal ly slam qad facaltu waan sameeyey buu yidhi markaasuu yidhi gabadhaa sii daaya hana degdegin buu yidhi oo ha aadin reerkiini ilaa aad ka hesho dad lagu kalsoon yahay oo naftaada aan ku aamini karno ku gaadhsiiya meesha aad ka timid gabadhii ayada ahayd halkiiba iska joogtay oo lagu dhaqaalaynayey ilaa ay yimaadeen wafdi xagga shaam ka yimid ay yimaadeen kadibna way u timid waxay tii rasuulka ilaahayow waxaa yimid wafdi baa soo galay aan ku kalsoonahay dadkana i gaadhsiinaya markaasuu nabi welibu yidhi gabadha dhar ha la siiyo oo weliba raashin ha la siiyo oo sahay ha la siiyo oo nafaqadeeda ha la siiyo kadib baan baxay bay leedahay gabadhaas ayada ah hunaa ayay naxariista nabiga caddaanaysaa sala allahu alayh wasalam xataa kelimada aan ku soo aruurinayo een ku soo gebagabaynayaay annagoon acdaada nabiga sal ly salam iyo acdaada muslimiinta xataa suu ugu naxariisan jiray intaan la gaadhin ina raxmatahu waxay gaadhay bini aadam iyo bashar intay dhaaftay ayay xayawaankii iyo ancaamtii iyo xoolihii iyo shimbirihii iyo xasharaadka ayay gaadhay nabiga siiradiisa haddaad aragtana in badan baad arkaysaa haweeney baa janno ku gashay ay waraabisay ya allah ay waraabisay ayaa haweeney baa janno ku gashay sala allahu alayh waali wasalam uu nabigu noo sheegay walcajiib nabigu shimbir buu arkay markaasuu man qatala cusfuuran war yaa shimbirkan dilay oo qofka shimbir dila sabab la-aan u dila maalinta qiyaama shimbirkiibaa imaano wuxuu dhahayaa wuu ii dilay dan la-aan buu ii dilay shimbir ma taqaanaa nabigeena sal ly slam naxariistiina ma taqaanaa nabiga sala allahu alay wasalam waa inaan baranaa nabiga siiradiisa naxariistiisa ilaahi tabaaraka wa tacaala calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa maba la soo koobi karo waxaan la yaabaa maalin maalmaha kamid ah
neef gaadiid neef riti ah oo meel ku xiran ayuu nabigu soo maray. neefki ritigaa markuu arkay neefki ritigaaba ilmeeyey. markaasuu nabigu u yimi sal ly slam, markaasuu nabiga dusha ka salaaxay, markaasuu yaa ritiga yaa iska leh. markaas nin reer ansaara baa yihi anigaa iska leh, ritiga waa ii dacwooday inaad dhibtay buuna ii sheegay, ritiga asagaa ilaali. naxariista nabiga lama soo koobi karo. intaanu kaga kulmayna xalaqaad kale waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah, wassalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu.